annagay tahay inaan ku sheegano Ethiopia annagay tahay Ethiopia inaan dhul ku sheeganay ayadu inaan dhul ugu sheegata ma aha naguma sheegan karto intaan ka sheegna cadawaa hal waa shabaab maanta waa labo waa awoodnaa shacab iyo ummad jirtaan nahay shabaabkana waa iska celinaynaa duulimaadka dibadda ka yimaada waa iska celinaynaa halkii xasan sheekh maxamuud oo bilaabay geedi socodkii cadaaladeed ee lagu difaacayay badda Soomaaliyeed ee ay sheegatay Kenya sidoo kale waxaan ammaanayaa ama aan ammaan u hayaa iyo bogaadin iyo sharafba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu way salaamaya meel walba oo diga daawaneysaan iyo si walba oo markaa aad maqleysaanba muuqaalkan maantayto waxaan doonayaa inaan aynu bal ku dul istaagno qodobadii ugu muhiimsanaa ee qodbad ka soo yeertay xasan sheekh maxamuud maruu ka hadlayay shirka ururka iskaashiga dhaqaalaha bariga Afrika qodbad uu halka ka jeediyay oo runtii noqotay qodbad umada oo dhan ay si adag markaa ay uga falceliyaan waxyaalo la yaab lahaana markaa ay ku jiraan ayaan falanqayn doonaa qodbadaasi guud markii aad fiiriso message-keedii laba fariimood oo kala duwan ayuu diray xasan sheekh maxamuud mid wuxuu u diray Ethiopia mid wuxuu u diray shacabka Soomaaliya mid shacabka Ethiopia u diray waxa la oran karayaa shacabka Soomaaliya wuxuu u soo diray fariin runtii ay aad uga niyad jabaan buuq badanna ka dhalisay baraha bulshada dhanka kale tona wuxuu shacabka Ethiopia u soo diray fariin markaa ay ku seexdaan oo aad moodid inuu markaa qoora salaaxayo bal qodbadaas ayaynu markaa falanqayn doonaa soo dhawaada meel walba joogtaan iyo si walba oo markaa aad maqleysaanba qodobka ugu horeeya uguna muhiimsan oo hadalka ku jiray qodbada ah ayaa wuxuu ahaa wuxuu yiri Ethiopia iskuma hayno inay badeena soo gaartay in kale iskuma hayno waxaan isku haynaa si Ethiopia ay u gaari lahayd badeena ayaan isku haynaa mana jiro dagaal naga dhaxeeya annaga Ethiopia oo badda ah ayuu yiri kaliya waxa meesha yaala sidee Ethiopia badda ku gaaraysaa da process kaas ugu isku diidana laakiin Ethiopia badda gaartay waarna dagaalna ma jiro ayuu saacad yiri bas baryahan dambe wadankan dariska ama Ethiopia aad ka maqleyseen arrimo ku saabsan badda iskuma haysan annaga Ethiopia inay badda gaarto iskuma haysan dagaal naga dhaxeeya annaga Ethiopia oo Soomaaliya Ethiopia ay bad u diidan tahay ma aha waxaan isku haysanaa waxay tahay Ethiopia siday badda ku soo gaaray hadalkaas markaa uu xasan sheekh maxamuud maanta ka sheegay fagaaraha caalamiga wuxuu meesha ka saarayaa khiyaaligii iyo beentii ummadda uu ku seexinayay isla asaga xasan sheekh maxamuud oo uu masaajid ka soo dirayay ayuu beenaynaya hadalkiisu beenaynaya maanta markaysa wuxuu xasan masaajidka ka yiri isbahaysiga maalin jimca ah Ethiopia waa cadawga koowaad maxaa lahayn buu yiri al-shabaab cadawga labaad Ethiopia noqday buu yiri dhulkeena inay maanta nagu soo hunguriyeysana ma ahayn ayadaa ahayd buu yiri inaan dhulkii ay hore nooga qaadatay markaasi aynu ka raadsano waxaan u sheegayaa cid walba sheekh iyo shariif cid walba inay diyaar garoobaan oo dalkooda difaacaan masaajidku halka ka jira haddii maanta dhul la isku sheega intaba waa isaga filanaa ninkii qaba inaanu isaga filnayn ka kacaan lena hurdada waa hurdo haysaa waa isaga filanaa waana isaga filnaanina marra badan ba waxaan iri ninkaan waxa lagu laabtay diintiisa xataa iswaafaji adag marka hadalkii masaajidka laga sheegay Ethiopia waa cadow Ethiopia waa lahayn say bad u gaareen iskuma hayno Ethiopia ayada ayaba ahayd bayna dhulkii naga qaatay ku qabsano isku aadi qodobka waxa lagu xila sheegay badan difaacina dalban difaacina oo dhan caawa qashin baa loo soo qodobka labaad oo qodobada ku jiray wuxuu yiri waxaan Soomaaliya caalamka u sheegayaa haddii Ethiopia ay doonayso ama ay rabto inay badda soo gaarto Soomaaliya waa soo dhaweynayna wuxuu intaa ku daray inay u soo gaarto sida ay badda Kenya u soo gaartay Uganda sida ay South Sudan u soo gaartay midda Kenya sida Ethiopia naftirkeeda ay u gaartay badda Djibouti isla sida uma doonayna buu hadalkaas waxaan isleeyahay waa hadal aan nuxur lahayn wax miisaan ah oo kor loo qaadi karana aan lahayn
canuga 8 jirka ee Soomaaliga xataa lagu masixin karayo sababtuna waxay tahay Uganda iyo meesha loo yaqaano iyo Kenya dagaal badeed kama dhaxeeyo dagaal suuxdin oo Ethiopia naga dhaxeeyana kala dhaxeeyo soo Sudan iyo Kenya waxaana Ethiopia naga dhaxeeyay dhulka inuu kala haysano taariikhdeena ma dhaxmarin Djibouti anaga naga goodo waa dal cusub laakiin inta ay dawladnimada noqotay ayagii iyo Ethiopia waxa ma dhaxmarinin marka kiiska Soomaaliya kiiska Ethiopia wax ka dhaxeeya kiisaskaas kale to irrelevant u noqonaya soo isma waxa la barbar dhigi karaa oo kaliya haduu oran lahaa alla ay isku dhow yihiin Ethiopia oo asmaraha ka soo qaadata bad waxa uu ogolaatay Eritrea kuwa ba kala go'ayo dagaalkana dhaxmarayo oo ha u doonto kuwa sida ay Ethiopia iyo meesha loo yaqaan Eritrea aysan ganacsiga u wadaagi karin oo kale to oo dagaal taariikhi ah oo xuduudeed uga dhaxeeyo ayaa naga Ethiopia nooga dhaxeeya dalkaas la oran karaya hadii ayagu siiyaan nagana oo ogolaan karna ganacsi kaas la oran karaya waa loo barbar dhigi kara laakiin dalkan oo kale dagaal ka dhaxeeyo iyo dagaal is haysta ma iyo dal dooni isbawaan ma waxa kale la yaab leh Ethiopia ma afku Xasan kaga qodiyeenaya kala ma taqaana qaabka kuwa kale nolol jooga Ethiopia waxay public u tahay badan qaadanaan doonayna intaan ka dabadnaan ma ahaanayno xoog iyo xeelad baki aan ku qaadan karna ku qaadanaa caadi yiraahdeen qofkan marka ana kala garanayno xanuunsan caafimaadka qaba ee sheeganaya ummadda madaxweynaha u yahay waxa uu ula hoos ordayo hadad gaaraysaan waa idin ogolna maxay tahay ninku hayo xoog baan ku qaadanaya inaad qoora salaaxaysa waa daciifnimo weyn waa maqaam aysan ummadayada Soomaaliyeed iyo badayada aysan geynin weyn dadka Soomaaliyeed iyo caalamkaba waxaan rabaa inaan mar kale u cadeeyo Ethiopia hadii ay doonayso xeebaha Soomaaliya inay soo gaarto waa soo dhaweynayna waxaan rabnaa inay u soo gaarto sida Uganda ay xeebta Kenya u soo gaarto sida Burundi iyo Rwanda ay u gaaraan xeebta Tanzania sida South Sudan ay xeebta Kenya u gaarto sida Ethiopia lafteeda ay xeebta Djibouti u gaarto oo xeebta Kenya u soo gaarto oo kale inay Soomaaliya u soo gaartaan laakiin waxaan isleeyahay inuu ka hoggaan noqdo ama uu sheegtay inuu hoggaan noo yahay runtii waa istaahilaa qodobka saddexaad oo ninkan uu ka hadlay wuxuu yiri waxaan diidanahay uu yiri in la jahwareeriyo shacabka Ethiopia asaga diidan shacabka Ethiopia in la jahwareeriyo harabnaa shacabka Ethiopia loo sheego inaan waalanahay isla markaasna aan u diidanayn in hadday bada soo gaariyaan aan soo gaaraan wax dagaalna uusan jirnin ayaa shacabka u sheegayna waa walaalaheed ma rabno in la jahwareeriyo markaas waxaan filayaa aad inuu cad yahay waxaan rabaa inaan la jahwareerinin ra'yiga caalamka inaan la jahwareerinin ra'yiga Soomaaliga iyo inaan la jahwareerinin ra'yiga ummadda Ethiopia ee dariska nahay shacabka Ethiopia iyo shacabka Soomaaliyeed darisaan nahay ismaanaan dooran shalayna waan ahayn maantana berino aan ahaan doona laakiin inay jahwareeraan oo si aan jirin wax loogu sheego waan diidanahay waxaan gaarsiinaynaa fariintaas laakiin kuwii kale Soomaaliyeed ee uu sheegay inay madaxweynuhu u yahay ayuu jahwareerinaya su'aashi aan asbuucii hore idin weydiiyay ayaa wali taagan marka wali kaan iyo matala iyo waa foreign agent ee ninkan Soomaali matala intii uu hadana mar labaad isku cadeynaya waxyaabo kale oo la yaab ka lahaa oo qodobada ku jiray dadku ay sida xoog galeen marka ay uga gilgisheen ayaa waxa ka mid ahaa wuxuu xaqiray halgankii dheeraa ee la soo galay badii Soomaaliya oo marka ay Kenya damcadeen hore u boobto wuxuu yiri wax dagaal ah oo dhacay ma jiro tusaale biis ah oo fudud oo macaan ah aan u soo qaato wuxuu yiri Kenya ayaan dhawto halka ay daliiginta xariiqintu ay marayso xoga yar muran marka si reer magaalnimo oo xadaariyada baano aan isqabsan tartiib aan u tagnay maxkamadda tartiibna waa kala baxay maanta tira walaalana وهذا وقف يمل كراك ويهي دولة ديك وشرطة سكه الرئيسي هو جامعها وها
madaxweynuhu shacabku ay jeclaayeen maxamed cabdullaahi farmaajo iyo dadkii kala duwanaa ee Soomaaliyeed ee aqoon-yahamada iyo looyarada iyo shacabka Soomaaliyeed ee muddada badan qurbaha iyo warbaahinta u taagnaa in badooda ay dib u helaan oo aan muran la gelinin effortkii iyo xooggii iyo dhaqaalihii iyo dhiiggii wiilashii Soomaaliyeed ee ku dhintay xuduudda Soomaaliya iyo Kenya markii ay calooshood u shaqaystayaashii Kenyaanku ay soo direen ay marar kala duwan duulaan ku soo qaadeen degmada madaxa ee gobolka Gedo waxaa soo dhan ayuu ninkaasi caawa ku shubay biyo wuxuu ka soo qaaday isagoo waxba dhicin wixii qof oo dhintay waxba dhimanin duulaankii Kenya ay soo qaaday lagu soo duulin buu yiri dhaqaale xoog badnaa ee ummadda iyo dalka ka baxay waxba dhicin buu yiri halgan ay Soomaaliya gashay oo dhowr iyo 10 sano socday ayuu ka soo qaaday xiriir waxba ahayn markii aan deriskeena isfaham weynay مثلا annaga iyo Kenya ayaa bari xuduudda badda meesha ay marayso Kenya bad Soomaaliyeed ma rabin oo kuma soo duuraynin laakiin xuduudda maadaama aan hore loo calaameen badda meesha ay marayso waataan isku qabanay waa ka wada hadalnay markaas afgara weynana maxkamadda caalamka tagnay sida ilbaxnimo ah ayaana loo kala xukumay dib dambana kama dhicin maantana Soomaaliya iyo Kenya laba wadan oo saaxiiba ma dhahaye waa laba wadan oo walaalo ah ayaan dhahayaa markay aan dib idin xasuusiyo maalinkii badda Soomaaliya ay loo xukumay oo waliba waxa laga goostay qaar baad laga goostay oo ICJ ee loo xukuntay hadalkii uu jeediyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo laba meelood oo kaliya ka fiirinaya qodobadaas way dheereed qaybta aan ka fiirinay waxa weeye madaxweynihii hore Soomaaliya wuxuu sheegay halgankii iyo dhibaatadii isku dayay Kenya loo soo maray ninkii markaa xilliga madaxweynaha ahaa badal xukuminayay dagaalka uu tirada badan u galay level walbana Kenya la gaaray dagaal walba ilaa safiiriin la kala qaatay meel walba isla gaaray ayaan bal in yar ka sii deynaya bal inuu noo sheego wixii xilliga Kenya ay Soomaaliya isku hayeen malan dib u xasuusano Soomaaliya waxa ma xasuustay bismillaahi raxmaani raxiim waxaan u mahadnaqayaa Allah subxaanahu wa ta'ala oo maanta na gaarsiiyay guushan taariikhiga ah iyo mira dhalka halgankii dheeraa ee dadka iyo dawladda Soomaaliyeed ay u galeen xaqiijinta kiiskii sharciga ee lagaga hortagay damaca hoggaanka Kenya ay ku doonayeen inay ku sheegtaan qayb ka mid ah badda Soomaaliyeed wuxuu ahaa halgan cadaaladeed oo ku astaysan aragti fog aqoon durugsan dhiiranaan wadaniyad ilaalinta ammaanada ummadda iyo difaaca dalka iyo dadka waxaa guuleystay xaqa waxaa guuleystay sareynta sharciga guushan waxaa leh shacabka Soomaaliyeed oo mar walbaba garab iyo gaashaan u ahaa madaxdooda iyo dawladda ay doorteen mar walba oo ay shacabku ku midoobaan wadaniyadda una midoobaan difaaca dhulkooda waa kan maanta oo kala ah oo aan ku joogno guul noo soo wada hoyatay waxaan kaloo idin xasuusinayaa xasan maantito halgankii ay dawladdaasi gashay waxa kama jiraan buu ka soo qaaday laakiin farmaajo maalinkaasi qaybtii uu xasan sheekh maxamed ku lahaa in badda dacwada kiiska badda la geeyo si raganimo leh ayuu sheegay oo wuxuu yiri waan kaga mahadnaqaynaa doorkii shariifka lahaa ee madaxweynihii hore ee Soomaaliya walaalkay xasan sheekh maxamuud uu ku lahaa wuxuu muujiyay inuu dagaalkaas halgankaas uu qayb ka ahaa waxa xusid mudan doorkii sharafka lahaa ee uu qaatay madaxweynihii hore ee dalka mudan qareenadii iyo khubradii Soomaaliyeed ee uu istaagay difaaca baddeena oo ay ugu horeeyaan abukaat Muna Sharmaan iyo Allah u naxariistay injineer Maxamed Umar Saalixi oo aad iyo aad ugu haminayay ama hamigiisu ahaa inuu goobjoog ka ahaado ama uu ahaado miraha dadaalkii uu galiyay kiiskan waxaan idin xaqiijinayaa in shakhsiyaadkan aan xusnay ay baal dahaba ka galeen taariikhda dalkeena xasanna maanta intuu biyo ku shubaya uu leeyahay halgan ma jirinba markii aan deriskeena isfaham weynay مثلا annaga iyo Kenya
ayaa beri xuduudda badda meesha ay marayso kenya bad soomaaliyeed ma rabin oo kuma soo duuraynin laakiin xuduuddii maadaama aan hore loo calaamayn badda meesha ay maraysa waataan isku qabannay waa ka wada hadalnay markaas afgaraweynana maxkamadda caalamkaan tagnay sida ilbaxnimo ah ayaana noo kala xukumay dib dambana kama dhicin maantana soomaaliya iyo kenya laba wadan oo saaxiibaa ma dhahaya waa laba wadan oo walaalo ah ayaan dhahaya ma arkaysaa waa farqiga u dhexeeya wey intaasaan kusoo koobayaa intii dib isaga soo laabanayno waxaan ka tagay si nabadino asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh